kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka hayaan oo aan bishiiba 2 jeer idiin soo gudbinno qaybta 20aad ee barnaamijkeena hayaan waxaan toddobaadkan ku eegaynaa muhiimadda uu wada hadalku leeyahay xilli dhawaan uu madaxweynaha Soomaaliya ku casuumay magaalada Muqdisho madax hore dalka u soo hogaamisay iyo siyaasiyiin kala duwan si ay uga wada hadlaan arrimaha mudnaanta u leh dalka Soomaaliya. kulanka ayaa waxaa diiradda lagu saaray arrimaha doorashooyinka amniga dalka iyo la dagaalanka argagixisada. gogosha shirkan oo socday muddada 2 maalmood ayaa waxaa lahaa madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo muddadaasi gaaban ee shirku socday lagu lafaguray qodobo ay ka mid yihiin nooca doorashada dalka Soomaaliya, nidaamka madaxtinimada, nidaamka xisbiyada badan, guddiga doorashooyinka qaranka, mideynta muddaxileedka hay-adaha federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo weliba habraacyada loo marayo dhammaystirka dastuurka dalka. goordhow dhegaystayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa waraysi aan la yeelanay Axmed Cabdi Haadi oo ah agaasimaha Somali Civic House hase yeeshee aan marka hore dhageysano hadal uu jeediyay madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kaas oo uga hadlayo muhiimadda uu leeyahay wada hadalka iyo wada tashigu. waxaan soo gunaanadnay shir wada tashi ah oo nooc kala dad Soomaaliyeed maxaa laga rabaa dadkan dowladda aan ku jirin maxaa loo yeeraa maxaa loo empower gareynaa maxaa looga dhacaa maxaa ka dowladdaani dadkay ka dhaxaysaay dad u gaar ma laha kuwa title kale ama dowlad goboleed ha ahaadaan ama baarlamaan ha ahaadaan ama xukuumad ha ahaadaan gacantay ku haayaan shaqadii inay gutaana laga rabaa laakiin dadka Soomaaliyeed cod talay ku leeyihiin sida loo xukumaayo waxaan ka hadlaynaa waa wadankan iyo dadkiisa see loo xukumaa waayo waxaan ka hadlaynaa yaa yiri dadka Xasan Sheekh dalka madaxweynaha ka Xasan Sheekh dadku aqli badan yaa yiri Xasan Sheekh uu aqoon badan yaa yiri asaa ugu waaya aragsan yaa yiri boqolaal joogta aniga iga aqoon badan iga waaya aragsan iga xikmad badan inaan weydiiyo waay intii suurtagal oo gaari karo talay keeneen waxay dhaheen qodob loo dulsay qodobkaana saanay nala tahay qodobkaana saanay nala tahay qodobkaana saanay nala tahay waa soo dhaweynay waa ka qaadanay taladooda processkaas waxa socda ah talooyinkii lagu daray oo loo muxuu ahay kuwii ugu waaweyn marka ayaga siyaasad waa marka laana 6 shir ayaa dowlad goboleedyada yeesheen labadii ugu horeysay maalintii la doortay intaan xilka imaanin RA meel la yiraahdo xafiis aan ku kulanay oo airportka dhexdiisa maalintii ugu horeysay maalintii 15 May 16 17 aan kulanay ka bacdi mar kale aan kulanay labadaasi isbarasho iyo maatan iyo dalka sidee u wadnaa iyo dad badan oo shaki kala qabay intii dawlad waxba isku yimid afartii ka dambeysay inta badan heshiisiyaan gaarnay oo quseeya dib u qaabeynta dastuurka iyo heshiisyada siyaasadeedka ah oo dadka loo gudbin doono garsoor ha noqoto cashuuraadka ha noqoto amniga ha noqoto awoodaha dowladda dhexe iyo dowlad maxaa kala awood kala waxa soo dhawaad siyaasadda maalintii laga hadlay meeshii bugtay afarta la saaray dadka dhan kulli waxa waaye qandaa wada qabatay qof walba oo yiri waa boode dalka saana loo xukumaa xisbiya lagu xukumaa xisbiyada tiradooda saanay naqanaayeen doorashadu saanay u ekaanay dadka doorashada maamulaya saanay u ekaanayaan doorashada xilligaas ay sanad walba dhacay ama sanado muddo kasta doorasho xilligeeda waa sidaan waxaasaan ka hadalnay siyaasadda la yiraahdo marka waxa ay dugsan yihiin kulli garsoorkan ka soo hadalnay cashuurtan ka soo hadalnay waxaan ka soo hadalnay maxaan ku yiraahdaa amnigan ka soo hadalnay waxa soo dhan waa soo publish gareynaa dadka dacwada dood kama qabin lagama qaylinay su'aalo meel qaarkood dadku laakiin ma ahayn siyaasadda iyo xukunka dalka markii laga hadlay waa waxa waaye nabara danqaday inaan fahamno waa marka annaga kuweena maanta mas'uuliyadda jooga inaan fahamno waa meeshaas inay nabar tahay wallahi bilaash caa u leeyihiin warkooda kuma jirna waa go'aanaba la gaaray waa hore u sii soconayna maya macquul ma odayaashaas siyaasiyiin hore oo dalkan soo xukuntay hadday tahay heer dowlad dhexe hadday tahay heer dowlad goboleed ay isugu jireen kuwa kale oo ambition loo hadda inay dalka xukumaan rabo oo soo muujiyay inay hoggaanka inay noqdaan rabaa ku jiray
waa isku nimiday laba maalmood oo dood aad iyo aad aniga aragtidayda aad iyo aad u fiican ay ahayd ra'yi fiican aaraa fiican qurux badan qaarkood kuwii annaga aan qabnay ay ka qurux badan yihiin ayay walaalay may soo jeedeen processkaas oo aaraada ay ku jiraan tixgelinay leeyihiin shirkaas iyo shirar dambe iyo kuwa dambe oo kale yaa muxuu ahay la sug imaan doonaa waa mahadsanyihiin shalay ugu dambaysan soo gunaanadnay guddoonka baarlamaanka iyo kulli meeshaan isugu wada tagnay waa is wada warsanay war soomaali inteenna xukunka joogtahay waa 4 qofoode soomaali oo dhammaa ra'yigooda iyo caqligooda loo baahan yahay marka insha allah wuuna socon doonaa gogashaasi ayagana marar kale oo badan isku soo noqon doonaa dad kale oo bannaanka joogan fursadaas helina waa u yeeri doonaa mujtamaca qaybihiisa kala duwan oo dhan maalin walba guddiga dib u habaynta dastuurkana waajibaadkiisaaba ka mid ah dadka inuu la tashado marka wax isku soo duduw inta aan baarlamaanka la geynin oo aan baarlamaankii waa kana wixii baarlamaanku waa meel dabcan lagu doodo wax lagu toosiyo go'aana lagu gaaro go'aan intaan la gaarina talo ay furan tahay marka ka hor in la weydiiyo dadka xamar joogo dadka gobolada jira dad dawlad goboleedyada dhammaan in la warsado la yiraahdo waa kana saanan ay u ekiin waxeen maxaa inta laga bedelo laan waxaan aakhirka bari ha noqoto sanadka dab ha noqoto 5 sano 10 sano kadib ha noqotee dadka loo bandhigaa inay u codeeyaan la rabaa referendum afti inay u qaadaan yiraahdeen ha waa ogolnahay in waxaas nidaamkaasna lagu xukumo dadka laga rabaa in war dadkii wax annaasu caduw lima jahal dadku waxa aanay aqoonin oo aanay ogeyn sidoodaba cadow u yihiin marka dadka waxa in loo sheego fahmaan la aqoonsiye kamid ahayday odayaashaasi wixii labadii biriyo la soo dhaafay ka dhaca meesha saasay ahaayeen aad iyo aad ay u mahadsan yihiin shaqo fiican oo qurxoon ay qabteen oo bilow ah oo marxaladii ugu horeysay ayaga lagu bilaabay socono doonta haddii aan la yiraahdo aniga madaxweynaha jamhuuriyadda anaa ogol in la yiraahdo ra'yigan kulama qabanayo ra'yigaana igala fiican rasuulka calayhi salaatu wasalaam qof khalq ilaahay abuuray oo ka nasahnaay oo ka karaamo badnaa oo ka maxaanku irahdaay ma jirin inuu bini aadam yahay oo daciif yahay aqbalsanaay rasuulka calayhi salaatu wasalaam inta keenayaa la weydiiyay yaa rasuulullaahi waxaan ra'yi miyaa mase waxyi waaye hadduu dhihi lahay lama su'aali lahayn waa la sii kala soco lahay waa la fuli lahay maya ra'yi waaye u dhahay kan ra'yigaana ka warnaa lahay ra'yigaa la barbar dhigtay xasan sheekho maskiinahoo dowlad yaroo hadda dagaal sokay ka soo baxday jooga ra'yi lama barbar dhigan see u dhihi karaa oo mid dowlad goboleed jooga soo u dhihi karaa aniga ra'yi lama barbar dhigan karo mid wasiir oo wasiir laga dhigay ama xildhibaan soo u dhihi karaa ra'yigayga saxa ha la qaato in la yeelaan rabaa see u dhihi karaa ogaada nin saas ah haddaad aragtaan waa nin ay ku dhacday nin ka fakhriyay xagga ra'yiga waa ogaada dastuurka bilo gudahood soo socda insha allahu tacaala waa dhammaystiraynaa dadka soomaaliyeed inay u codeeyaan iyo referendum in loo qaado waa howl kale step tallaabo kale in la qaado u baahan waa laakiin buug la leeyahay buugga waa dastuurkii oo dhammaystiran waaye la leeyahay inuu naga yimaadaan rabnaa waxaan mamnuucnay dastuurka in bannaanka looga soo tashado naybaasho lala aado istanbul lala aado mamnuuc ma dhacayso soomaaliya iskale dalkan soomaaliya dhexdiisa looga tashanaa dadka soomaalidana waa lala tashanaa maalin kismaayo tag maalin garowe tag maalin jowhar tag maalin baydhabo tag maalin xudur tag beledweyne tag jalaalaqsi tag meeshaad rabtood isleedahay meeshaanaad ku shaqayn kartaa adigu tag laakiin xuduudaha dhexdooda lagama bixinayo tala dastuurarka ilaahay idankiisa waa tahay dhegaystayaal intaasina aan uga gudubno khudbadda uu jeediyey madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud markana dhegaystayaal aan u gudubno waraysi aanu la yeelanay axmed cabdi haadi oo ah agaasimaha Somali Civic House waxaana uu ugu horreyn ka jawaabayaa su'aal ku saabsan muhiimadda iyo qiimaha shirku lahaa aniga aragtideeda shirkaasi muhiimad weyn u lahaa saad la socoto Soomaaliya dhaqanka awoodda ama isticmaalka awoodda wadamada ku fashilmayay ku jirtaa oo Soomaaliya taariikhdeeda afgambigii 69kii ilaa burburkii dagaalkii sukeeyay kadib midkii hadda ugu dambeeyay farmaajo waxyaabaha ugu weyn ciladaha uu lahaa laga cabanaya inuusan ogolayn in miis wax lagu dhameeyo marka in madaxweynuhu uu aragti siyaasi ah oo bisil la yimaado oo yiraahdo yaa dalkan kale oo stakeholders ka ama yaa kale oo saabilay ka siyaasadeed oo aan la fariistaa oo u yeero oo uu la fariisto oo waliba anagu xogtaan ku hayna ay tahay in ayagu aad uga codsaday maaragtay inuu la fariisto arintaas waa
siyaasadda Soomaaliya ama dhaqanka waa qurxinaysaa waana arrin bilow fiican leh waana hadday sax tahay oo laga rabo in nuxur uu ka soo baxo ama ujeeddo oo laga leeyahay dhaxal ah in laga tago dhaqanka siyaasadda Soomaaliya kamid noqoto aad ayay u qurux badan tahay si guud marka aan uga hadalno muhiimad intee laeg ayay wadahadalladu u leeyihiin wadamada colaadaha ka soo kabanaya sida dalkeena Soomaaliya oo kale waa arrin dimuqraadiga waana xadaarad oo waxa weeyaan dee ummaduhu markastoo sii ilbaxaan intay qoriga ku kala bixi lahaayeen waxay go'aan ku gaaraan miisaska inay isugu yimaadaan oo si civic ah ama si madani ah loo wada hadlo marka siyaasiyiinta Soomaaliya oo dhan ayaa wax ka baran kara siyaasadda Soomaaliya maaragtay sheeg dhaqan cusub oo siyaasi oo ku soo biiray dhaqanka siyaasiga uu samaysmaa madaxda kale cadaadis ay gelinaysaa hadday dictatorship in ay xukun kaligood ay go'aamada dalka ay qaataan oo jahintiisa ay qaataan caqabad ay ku tahay sidoo kale dee dhaqanka Soomaaliya oo dooda ah in qofka Soomaaliya uu yahay qof sinaanta ogol oo aan ogoleen kala sarreynta iyo in la baawrka qof uu maroorsado ama macangaga wax loo yaqaano rejimada noocaas kala Soomaaliya in iska hana qaadin oo dimuqraadiyadda Soomaaliya hore u socoto saan horeba kugu sheegay wadamada Afrika gaar ahaan Soomaaliya waxay ku jirtaa wadamada loo yaqaano adduunka wadamada ku guul daraystay inay hanaan siyaasi ah dhistaan dadkoodu waxaana la yiraahdaa failed state marka failed state waxa keena waxa weeyaan gooshii nabadda ayaa la laabay oo qof baa xukunka maroorsada si u socotana waxaa dhaca waxa loo yaqaano dagaal sukeeye markuu dhacana jantar rogan ayaa dhacda jantar rogan markay dhacda oo anarka ay dhacdana waxa weeyaan nin kasta iyo wuxuu awood leeyahay oo inta ninka ugu qori badan ayaa xukumay marka Soomaaliya markaa fiirsa taariikhdeeda marxaladaas dhan waa soo martay marka in oo dhaqan siyaasi ah oo goosh nabadeed ay fidsan tahay oo dee Soomaaliya waxay ku maamulada aan wada hadal aan heshiin ay ka dhigan tahay marka waa sawir fiican ay siyaasadda Soomaaliya ay ka bixin sidoo kale waxay sii kabaysaa doodii transitionada Soomaaliya oo nabadda ku dhacay oo dee sanadii ugu dambeeyay marka Soomaalidu waxay tirahdaan ritiga dambe ritiga horsaanqaadkiisu leeyahay marka hadduu madaxweyne hadda joogo uu bilaabay systemka maxaa la yiraahdaa wada hadalka iyo miiska la isugu yimaado saxgal oo aan isqancino waxaan isleeyahay dahnaanka siyaasiga Soomaaliya maaragtay faa'iido weyn ayay arrintan u leedahay sidee loo xoojin karaa dhaqanka ku salaysan wada hadalka si looga fogaado colaad iyo gacan ka hadal sida kaliya loo xoojin kara waxa weeyaan markasta horta mas'uuliyadda koobaad waxay saaran tahay qofka awoodda jooga markaas oo waxaa la yiraahdaa markii laga hadlayo culumta siyaasadda marka laga hadlayo oo culimadii waaweyneed oo siyaasadda adduunka hore maxaa la yiraahdaa Max Weinberg oo kale markuu ka hadlayo wuxuu yiraahdaa qofka hoggaanka waxa saaran laba qodob oo aha inuu wax aaminsan yahay iyo mas'uuliyad ayaa saaran aaminaaddu waxay ka dhigan tahay inuu afkaar cusub la yimaado inuu siyaasado cusub u jeexo inuu sometimes mararka qaarkood waxyaabo oo aan la filin oo qaraska tuurnamaha inuu sameeyo inuu aaminsan yahay problemka dalka jira inuu dhaqaajin karo oo wax ka xalin karo waa qodobka labaadna waxaa inuu ilaaliyo waxa loo yaqaan mas'uuliyad oo responsibility-ga ah inuu dadku uusan kala geenin dagaal sukeeyay inaan la gelin uusan tusaale xun uusan u noqonin jiilka siyaasiga ama dhaqanka siyaasiga dalka jira inuusan ka talaabsanin waxa loo yaqaano xeerasha la dejistay oo ilaalinta dastuurka ay kow ka tahay oo la yiraahdo constitutionalismka iyo waxyaabaha dhaqanka madaniga ah dhaqanka madaniga waxaa kamid ah in dadku ay isku yimaadaan oo yiraahdaan iyo tabashadana jirtay seen aan u xalinaa miiska la soo yimaado markaas arrimahaas oo dhinacyadaas marka ka fiirisa ayay xoojinaysaa waxaa kaloo jira ayada nafteedana siyaasiyiinta Soomaaliya hadda qaabkay u socdaan ama heshiiska ay u galayaan ama loo wada fariisanayo waa iska ashkhas in wixii la systemize gareeyo oo la institutionalize gareeyo political partieska oo maxaa la yiraahdaa hadda dooda badan ay ka taagneed oo ahayd waan xiraynaa oo laba xisbi aan ku xiraynaa iyo waa la badinaa oo Soomaaliyana waxaa u fiican dooda markasta plurality in la badiyo qof kastana soo isku express gareeyo oo maaragtay iskooga arko maxaa la yiraahdaa meesha kubadda siyaasadda ay ka socoto marka haddana sidaan aan xogta ku hayno waa la furay axsaabta in la badiyo maxaa yeelay caqliga wuxuu sheegaya axsaabtu Mareykanka kaliya markaa fiirisa axsaabtu ma xirno laakiin ayaga de facto ama xaqiiq ahaan inta ugu soo hareen oo laba xisbi ugu dad badan oo ugu taageero badan ayaa markaas iska soo baxay adduunka dhan iska tahay marka waxyaabahaas dhan markaa fiiriso waa talaabo fiican oo bulshada Soomaaliyeed
ugu dambeyn Axmed maxay tahay kaalinta bulshada rayidka ay ka qaadan karto hanaanka wada hadallada looga arinsanayo siyaasadda dalka aad loo gaartiin karaa sababta wax weyn oo la kabiyada dowladda saameyntu ma ka timaado hoos kama timaado awood kor ay ka timaado ay dhaqanka iyo culture marka haddii madaxdii federaalka ahayd ay yiraahdaan dadkii oo siyaasadda nolol lahaa miisayaan oo wax kula dhammaysanaynaa kuwa oo jooga maaragtay sheeg goboladan waxay ku qasbeen dadka inay miis ay la fariistaan marka saasna waa loo dadejin karaa oo tusaalahaas fiican ayay noqon kartaa waxaa kaloo ay noqon kartaa qayb fiican ka qaadan kara dad hadda maqan oo Soomaali ka maqan oo laakiin muhiim ah oo loo yaqaan dadka loo yaqaan oo bulshada rayidka ama civil society marka doorka civil society-ga Soomaaliya aad u hooseeya haddii la helo oo civil society xoog leh hoggaan leh aragti leh dalkan dan kale oo maaragtay aan ka shaqaysanaynin oo project aan ahayn ayada naftooda waxay qayb weyn ka qaadan karaan in siyaasiyiinta lagu qasbo inay axsaab samaystaan dad inay matalaan dad oo axsaabta taageersan oo ra'yi qaba ajenda siyaasadeed ajenda dhaqaale ajenda bulsho ajendo maaragtay sheeg oo waxa loo yaqaan siyaasadda arrimaha dibadda ajenda oo ganacsi adduunka ka kala leeyahay ajenda oo ku saabsan waxa loo yaqaan si looga faa'iideysan lahaa badda iyo waxyaabahan oo blue economics la yiraahdo sidii loo ilaalin lahaa environmentiga fayadhowrka guud iyo caafimaad waxa ayaa loo baahan sabno civic aynu samaysno wada dheer ay qaadaneen maxaa yeelay Soomaalidu dad oo wali oo maxaa la dhaqaale ahaan iyo aragti ahaan iyo nolol ahaan koremaha laakiin waa tusaale fiican aad buu u mahadsan yahay kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Axmed Cabdi Haadi oo ah agaasimaha Somali Civic House waxaana weli aad la socotaan barnaamijka hayaan oo aan bishiiba 2 jeer idiin soo gudbino hase yeeshee dhegeystayaal aan markan u gudubno waraysi aanu la yeelnay Cali Siciid Cali oo isaguna ah falanqeeye arrimaha siyaasadda waxaana uu ugu horreyn ka jawaabayaa su'aal ku saabsan sida kulankan ka dhacay magaalada Muqdisho uu u noqon karo mid furo u noqda masraxa siyaasadeed ee dalka Soomaaliya siyaasadda Soomaaliya intii aan naqaanay 5 sano la soo dhaafay ani ma u maleynayo in wax hadda ka hor madaxweyne Xasan Sheekh uu micnaha madaxweynaashii hore laga waayay inuu sameeyay la tahay maadaama uu mucaaradkii dhan halban isugu keenay uu la sheergareeyay problemka ama uu micnaha la wadaagay problemka dowladnimada haysto sidoo kalena uga garaabeen ayagana sida aan wararka ku hayo in madaxweynaha aad u dhiban yahay sidoo kalena uu hadda aad yani u danaynayo in lagala shaqeeyo la dagaalanka al-shabaab marka si guud ahaan ani waxaan is leeyahay waa tallaabo ku dayasho mudan oo in madaxweynaha lagu bogaadiyey ay tahay curfiga siyaasadeedna uu aad wax ugu qurux badan ay tahay sida aniga ay markaas u arko dabcan in muddo ayaad ku soo jirtay arrimaha ku saabsan xalinta colaadaha iyo khilaafaadiyada siyaasadeed markaad eegto waaya aragnimadaada dal colaad ka soo kabanaya sida Soomaaliya oo kale muhiimad intee la eg ayay u leeyihiin wada hadalladu aad u mahadsan tahay marka laga hadlayo waxaa loo yaqaano conflict management amaba xalinta khilaafaadka waxyaabaha ugu muhiimsan oo componentska yani ku jira waxaa ka mid ah negotiation dialogue reconciliation and reconstruction wax la dhaho oo markaas afka qalaad ingiriisaas lagu loogaasoo ah wada hadal dib u heshiisiin iyo dib u dhis bulsho kala qaybsan oo kale oo Soomaaliya markii hadda qofka uu madax u noqdo cilado badan iska jiro markasta optionka oo dagaalka ah amaba in si cunfi ah wax lagu xaliyo yani wax hadda natiijo oo macnaha wanaagsan lagama soo kordhiyo waxaana ogaataa sidoo kale markii dialogue laga hadlayo markasta oo siyaasadda uu problem ka jiro waxa kaliya wax lagu xalin karo waa dialogue ama hadal haddii siyaasadda lagu heshiiyeen badanaa dagaalka uu iska dhammaadaa African Union iyo UN-kaba waxay aad u dhiirigeliyaan wada hadal in markasta xalinta khilaafaadka uu micnaha gogoldhig u noqdo taas marka meelo tiro badan oo Afrika ka mid ah looga guuleystay in wada hadal sida kaliya wax lagu xalin karo ay wada hadal tahay marka u imaadina Soomaaliya oo og tahay inta jeero dagaalo sekoy ay ka dhaceen markii ugu dambeysayna inta la ismari waayay Soomaaliya dhexdeeda la isku mari waayay inta Djibouti la tagay la wada fariistay wada hadalkii meeshaas ka soo bilowdayna
ilaa maanta dowladaha aan haysano gondhig u yahay in wadahadal ay kasoo bilowdeen. marka Soomaaliya waxaan isleeyahay muhiimad ugu weyn oo dhaqanka Soomaaliyana sidoo kalena wuxuu dhiirigelinayaa in la wada hadlo. waa tii Soomaalida ay dhihi jireen geed yar iyo geed weyn aan isugu imaano. taas marka waxay caddaynaysaa maadaama dhaqanka Soomaaliyeed beeraley iyo dad xoolo dhaqataa u badannahay, markasta wadahadalka wuxuu qayb weyn ka yahay conflict management ama in wadahadalka lagu xaliyo khilaafaadka jiro, aana lagu xalinin cunfi iyo dagaal iyo wax la mid ah. cali, sidee bulshada Soomaaliyeed loogu dhiirigelin karaa in ay dareemaan muhiimadda wadahadalka si loo yareeyo colaadaha? waxaa loo dhiirigelin karaa ila tahay aniga in waxyaabahan loo yaqaano civic educationka, amaba markii la joogo goobaha waxbarashada oo kasoo bilaabanayso xarumaha dugsiyada hoose dhexe sare, in wadahadalka iyo xalinta khilaafaadka inay muhiim u tahay wadahadalka in lagu daro curriculumka dalka, number 1. number 2, sidoo kale waxaa isleeyahay lagu dhiirigelin karaa in mediaha uu kaalin muhiim ah ka qaato in wadahadalka uu yahay wax ugu muhiimsan markaasi bulsho iskhilaafsan ay ku dhamaysan karto. qodobka saddexaad sida loo dhiirigelin karo waxay ila tahay dhammaan bulshada rayidka ee Soomaaliya in ay wacyigelin ka sameeyaan xalinta khilaafaadka componentiga ugu muhiimsan ama ugu fiican inay tahay in la wada hadlo. iyo sidoo kale ugu dambeyn marka la joogo majaalka siyaasadeed in dadka lagu daydo oo Soomaaliya loo yaqaano hal wal caqd inay ayagana kaalin ka qaataan wadahadalka ee example u noqdaan sida hadda madaxweynaha uu sameeyo kale in inta hal goob la isugu yimaado hal arin laga wada tashto kadibna go'aan wadareed la qaato. saasay ila tahay in loo qorsheyn karo. ugu dambeyn marka maxay kula tahay in ay noqon karto kaalinta ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliyeed marka ay timaado wada hadallada iyo wada xaajoodka ku aadan xalinta arrimaha muhiimka ah ee mudnaanta u leh dalka Soomaaliya? bulshada rayidka sideedaba marka laga hadlayo wadan burburay oo kale dowladda waxaa yani kaalin badan ay dowladda laga rabay ayaa waxaa markaasi qabato bulshada rayidka. sida aan la socono Soomaaliya 20 sano la soo dhaafay dowladnimadeeda asaaska inta lagu jiray kaalin badan oo dowladda ay lahayd waxaa qaadatay bulshada rayidka, hadday ahaan lahaayeen NGO-yo, hadday ahaan lahaayeen international organizationska, hadday ahaan lahaayeen bulshada rayidka ee magaalada gudaheeda ka taliso oo waxbarashada ka shaqeysa iyo xalinta khilaafaadka iyo dhammaan. marka waxay ila tahay Soomaaliya inay hadda muhiim u tahay accountability-ga dowladda. xataa marka laga hadlayo waxaa aad micnaha loo dhiirigeliyaa in kor loo qaado ka qaybgalka bulshada rayidka ah ee ka qayb qaadanayaan dhammaan stebiska loo marayo dowladnimada, hadday ahaan lahayd waxbarashada, hadday ahaan lahayd service pro in dowladda serviceka ay dadka wada gaarsiiso, hadday wada ahaan lahaayeen in dowladda markaas lagu dhiirigeliyo in bulshada rayidka ay kaalin muhiim ah ka siiyaan ka qaybgalka dowladda. sidoo kale xataa madaxweynaha maanta jooga ee Soomaaliya asaga naftirkiisa wuxuu ahaa xubin firfircoon oo kasoo shaqeysay bulshada rayidka Soomaaliya. marka taas waxay dhiirigelisay in asaga naftirkiisa uu markaasi u muuqatay gaab siyaasadeed oo loo baahan yahay in la buuxiyo, sidaasna uu ka buuxiyey. marka guud ahaan aniga waxaa aad u dhiirigelinayaa in kor loo qaado ka qaybgalka bulshada rayidka ee Soomaaliya dowladnimadeeda. aad buu u mahadsan yahay. kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Cali Siciid Cali oo ah falanqeeyaha arrimaha siyaasadda ah, waxaana uu wareysigiisa ugu dambeeyey qaybtii 20aad ee barnaamijkeena Hayaan oo aan toddobaadkan uga hadlaynay muhiimadda wada hadalka. tani intaan dib ugu kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.